kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Ras Kamboni. Jubbaland goobo muhiim ah ayay saaka ka qabsatay ciidamada dawladda Soomaaliya. Haddaba goobaha ay qabsatay waa xagee? Maxaa ka jira in garoonkii iyo sidoo kale ceelkii biyaha Ras Kamboni ay la wareegtay? Waxaan kaloo aan dul istaagi doonaa ciidamada iyo maxaabiista labada dhinac kala qabsadeen. diyaaradaha dagaalka ee markaasi ay Jubbaland gacanta ku dhigtay oo ay sheegtay inay fashilin doonto dawladihii Soomaaliya ku taageeray si ay ugu cadeyso in hubkii al-shabaab darteeda ay u siiyeen ay kula dagaalamaan ay Jubbaland oo nabada ku soo weerareen. Puntland hadal qoraal ayay soo saartay oo waxa ay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya ay duulaan gardarra oo cad ay ku qaadisay Jubbaland. waxayna Puntland leedahay hubkii al-shabaab loogu talagalay iyo diyaaradihii daroonka. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku weerarayaa ciidamadii Jubbaland ee shabaabka la dagaalamayay. dhinaca kale Axmed Madoobe maxay uga dhigan tahay saakay mar haddii Ras Kamboni oo 270 kilomitir u jirta Kismaayo oo ciidamadii dawladda federaalka intuu ku weeraray goobo muhiim uga qabsaday. Kismaayo sooma muuqanaysa in aan lagu watay karin oo aan foodaba la dari karin mar haddii Ras Kamboni ba oo ciidamadii dawladda uu leeyahay waan ku jabinay. hadalka wasiirka amniga ee Jubbaland oo tuutaha militariga qaba ayaan idin la wadaagi doonaa iyo arrimihii wararkii ugu dambeeyay muuqaalkan la gare sheergarayo saaxiibada la wadaag janalkana subscribe de kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Ras Kamboni oo xaaladdu wali adag tahay la is hor fadhiyo Jubbaland iyo ciidanka dawladda federaalkuna halka kaliya ay markaan isku haystaan ay tahay saldhigga waa qabsanaynaa iyo qabsanaysiin waa saldhigga Ras Kamboni oo ciidanka Soomaaliya ay leeyihiin annaga kan haysana Jubbaland ay leedahay dagaalku istaagmahay ilaa aan ka qabsano soo dhawaada xogahaynu ka helanay iyo xiriiraan la sameynay deegaankada Jubbaland waxaanu ku soo ogaanay in Jubbaland ay saaki gacanta ku dhigtay garoonkii diyaaradaha Ras Kamboni oo ay iminka gacanta ku hayso sidoo kale ceelkii biyaha laga cabi jiray ee tuulada Ras Kamboni ay gacanta ku dhigtay laakiin ilaa iminka dagaalka iyo ishorfadhigu uu ka taagan yahay in Jubbaland ay gacanteeda kaliya ka dhimantahay inay galo saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin Ras Kamboni. Jubbaland waxay sheegtay mar haddii garoonkii qabsatay oo sidoo kale ceelkii biyaha Ras Kamboni ay qabsatay waxa kaliya u dhiman inay tahay saldhigga ciidamada ee Ras Kamboni oo hay'adda ciidamada dawladda Soomaaliya ay degan yihiin. tani waxa ay muujinaysaa in Jubbaland saaka ay cudud aan caadi halka ku soo bandhigtay. dhinaca kale Jubbaland waxay dawladda federaalka ku eedeysay in ay hubkii iyo sidoo kale ciidamadii qarankaba ay saaka u adeegsatay burburinta dawlad goboleed Soomaaliyeed oo dhisan iyo ciidan markaasi dawladeed. waxa kale oo ay Jubbaland sheegtay in diyaaradaha iyo hubkii la adeegsanayay ay gacanta ku dhigeen oo hubkaas iyo diyaaradaha ciidale iyo dawladaha Soomaaliya ugu deeqayna ay soo bandhigi doonaan si dawladahaasi ay maanta kadib uga fiirsadaan inay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda ay hogaamiyo ay hub siiyaan. dhinaca kale waxay sheegtay in ciidamo fara badan oo ilaa 40 ka badan ay gacanta ku dhigeen halka dawladda Soomaaliya aysan wali hadlin laakiin dadka taageersan ay leeyihiin ciidamada Jubbaland ayaanu gacanta ku dhignay. Jubbaland dawladda federaalka waxay ku eedeysay in iyadu dagaalka bilowday soo duushay halkaasna ay la wareegtay halkaasna ay Ras Kamboni iyadu ciidamadeeda ay kula wareegeen marka hore laakiin ay Jubbaland waxay leedahay waan u dul qaadan weynaa wax halka ka socda. garoonka Ras Kamboni ee saakay ay Jubbaland ciidamadoodu gacanta ku dhigeen waa kii ay maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ee diyaaradooda ay ka soo degayeen waa kii ay sanad u soo maraysay sidoo kalena waa kii la filayay in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu maalmaha soo socdo uu ka soo dego. Xamse Cabdi Barre oo la filayay in Ras Kamboni tago ayaa haatan safarkiisu uu markaasi u muuqanaya inuu baaqday ama burburay sabab la xiriira baa la leeyahay in dabcan uu Ras Kamboni garoonkeedii uu ka soo degi lahaaba la wareegay. in Jubbaland ay garoonka Ras Kamboni la wareegto waa wax weyn iyo u guul aan taariikhi ah oo aan caadi ahayn baa la leeyahay sababtuna waxay tahay halka kuwa ay cadowga aragtay ciidamada Soomaaliya ay markaasi ay ka soo degayeen sanad iyo hubka u soo marayeen halka ay ahayd. tani waxay qayb ka tahay baa la yiri guulaha ay gaartay Jubbaland saakay ee ay markaasi ku leedahay dagaalka iyo saakay wuxuu noo ahaa guul. wasiir ku-xigeenka amniga ee Jubbaland ninka la yiraahdo dabcan aadan Axmed Xaaji oo shirjiraad ku qabtay Dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyay ku qabtay iraahda Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud iyo meesha la isla marayo iyo wararkii u dambeeyay bal qayb kamid oo warkiisa aan idin dhageysiiyo. dagaalka hadda ka socda dawladka magaalada Ras Kamboni saaka aroortii ayaa ciidamada dawladda federaalka ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Ras Kamboni ay weerar ku soo qaadeen bariismaha ciidanka Jubbaland. runtii weerarkan ay ku bilaabeen drone
ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa hadda waxaa iska soo dhiibay horin ka mid ah ciidamadii Muqdisho laga keenay ayaa isa soo dhiibtay si fiican baan oo la dhaqanay si fiicanna waa loo dhaqmi doonaa waxaan nasiib darro weyn runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn waana ka xunnahay mas'uuliyadaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh وهجاج مركز هلا جاي مادو بنتلان يا ورث صارتي قرال أي صارتي وزير ك الرماها جودها جبلان عبد فارح جحا وتويتر كسكوقري أيوه قرب استاجو موتشي جبلان استاجو أو وير كوقاضي دولة فدرال كحسن الشيخ محمود هجاميو جحا هذا الكيسة وحا وكيري حسن الشيخ محمود وحا ودجال كل جرادات كيسة دجال علوسيا لجوس شيء يا دجان كراس كبوني dowladda Soomaaliya buu yiri juxa hadalkiisa kule oo waxa uu leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronista ay u adeegsatay ciidamada Jubbaland halkii ay u adeegsan lahayd taa beddelkeeda al-shabaab waqtiga dibaha looga fiirsado ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay juxa waxaana moodaa in wasiirkan Puntland u hadlay hadalkiisu uu cad yahay oo ku leeyahay dowladda Soomaaliya duulaan aan loo meeldayin iyo gardarra cad ay Jubbaland la aaday oo ay ku weeraraysaa waa ay ka khaldan tahay waxaana moodaa in Puntland mar walba qof mas'uul walba u hadlaba uu Jubbaland garab taagan yahay tani waxa ay qayb ka tahay eedeymaha tirada badan ee loo jeedinaya dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud kadib duulaankii ay ku qaaday Jubbaland iyo ciidamadii ugu badnaa halka ay geysay waxa dhici karta baa leeyahay in dowladda Kenya laftirkeedu ay war soo saarto ay ku tiraahdo xuduudayada aad ku dagaalamaysiin ma yeelayno umana dulqaadan karna ee isla kaya dhaafo oo meel kale isla aada sababtoo ah Ras Kamboni waa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya halkaasna Kenya ciidamadeeda ayaa ka agdhow waxaana ay Kenya ka cabsi qabtaa dagaalkan ay Soomaalidu isku xasuuqaysa ee Ras Kamboni ka dhacaya in ayadu u saameeyo marka waxa la leeyahay saacadaha soo socda Kenya war weyn laga filan karaa dhinaca kale Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa hubkiisa ay dowladda Soomaaliya maanta garwaaqsatay awoodiisaba waxa cadaatay baa leeyahay oo dowladda federaalku cadaatay Axmed Madoobe inuu san ahayn nin sahal wax looga qaadi karo hadiiba Ras Kamboni oo 270 kilomitir Kismaayo u jirta oo dowladii intuu ku weeraray saaka goobo muhiim uga qabsaday waxa ay ka dhigan tahay baa leeyahay in Kismaayo aan ninkan waxba looga qaadi karin oo waliba ay u dheertay in ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ay halkaas u joogaan xogaha iyo wararkii ugu dambeeyay ee goobtaasi iyo halka la kala qabsaday mar walba wadaagi doonaa annagoo xiriirada aan khadkaba aan ka baxayn oo mar walba Kismaayo ilaa Muqdisho ilaa Ras Kamboni telefoonada u diri doona waad mahadsantihiin muuqaalka noo lay gareeyo noo share gareeyo saaxiibadin la wadaaga channelkeena subscribe dhahaya si aanu 70 iyo 100 kunba u gaarno waa mahadsantihiin